Kubadda cagtu waa luqad caalami ah. Waa meesha ay ku kulmaan malaayiin qof oo ka kala yimid qaaradaha adduunka, iyagoo wadaaga hal dareen iyo hal jacayl. Laakiin quruxda ciyaartan waxaa mararka qaar hareereeya mugdi ka dhasha cunsuriyadda iyo midabta koorka oo weli ku dhex dhuumanaya fagaarayaasha caalamka. Laga soo bilaabo aflagaadooyinka garoomada ilaa weerarada dhanka internetka, ciyaartoy badan oo tayo iyo magac leh ayaa la kulmay xaalado ka baxsan bini'aadantinimada. Qaarkood waxay doorteen inay ka aamusaan oo ay kubbadooda kaga jawaabaan, halka kuwo kale ay go'aansadeen inay farta ku fiiqaan dhibaatada. Haddaba muuqaalkeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa sheekooyinka xanuunka badan ee ciyaartoydii u adkaystay midabta koorka, sidii ay uga dhiidhiyeen, iyo sababta ay cunsuriyaddu weli u tahay nabar ka dhigaya wadnaha ciyaaraha adduunka. Hase yeeshee, is xasuusin, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan sabskraib noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u sheer garay saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan follow na soo dheh, sidoo kalena muuqaalkan noo sheer garay. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, Vinicius Junior. Xiddiga reer Brazil ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday wejiga dagaalka looga soo horjeedo cunsuriyadda ee horyaalka La Liga, isaga oo la kulmay aflagaado joogto ah oo kaga imaanaysay taageerayaasha kooxaha ka soo horjeeda. Vinicius waxa uu doortay inuu si cad u cambaareeyo mas'uuliyiinta horyaalka, isagoo ku booriyay inay qaadaan tallaabooyin adag. Mario Balotelli. Balotelli waxa uu ahaa bartilmaameedka koowaad ee taageerayaasha cunsuriyiinta ah ee Talyaaniga. Marar badan ayuu hanjabaad iyo aflagaado kala kulmay taageerayaasha, xitaa hadda ka hor ciyaar ka tirsanayd horyaalka Serie A sanadkii 2019. Balotelli waxa uu ugu hanjabay inuu garoonka isaga bixi doono kadib markii lagu soo tuuray hadallo midabta koorka ah. Samuel Eto'o. Mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa taariikhda Afrika, Eto'o ayaa sanadkii 2006 isku dayay inuu garoonka ka baxo intii ay socotay ciyaar dhex martay Barcelona iyo Real Zaragoza, maxaa yeelay taageerayaasha kooxda Real Zaragoza ayaa ku dhawaaqayay dhawaaqyo xayawaan ah. Markaas ayuu yidhi, "Miyaan bixi karaa? Ma rabo inaan ciyaaro." Dani Alves. Alves ayaa ku jawaabay hab aad u yaab badan oo geesinimo leh. Sanadkii 2014, intii uu ciyaarayay kooxda Barcelona, taageere ayaa garoonka ugu soo tuuray moos. Dani Alves, halkii uu ka xanaaqi lahaa, waxa uu soo qaatay mooskii, kadib intii uu fiiqday ayuu cunay mooskii, dabadeedna waxa uu sii watay ciyaartiisa. Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo Bukayo Saka. Saddexdan ciyaartoy ee xulka England ayaa la kulmay weerar dhanka internetka ah oo aad u xun kadib markii ay khasaariyeen goolkulaadyadii finaalka Euro ee 2020. Tani waxay dhalisay dood caalami ah oo ku saabsan sida shirkadaha baraha bulshada ay ugu fashilmeen inay difaacaan ciyaartoyda madow. Kevin Brosbotin. Sanadkii 2013, isagoo u ciyaaraya AC Milan, Putin ayaa garoonka isaga baxay intii ay socotay ciyaar saaxiibtinimo kadib markii lagu cayay midabkiisa. Kooxdiisii oo dhan ayaa raacday, taas oo keentay in ciyaarta la joojiyo. Waana mid ka mid ah go'aanadii ugu horeeyay ee wadajir ah ee laga qaato cunsuriyadda. Raheem Sterling. Sterling ayaa marar badan la kulmayay midabta koorka, gaar ahaan ciyaar dhex martay xulka England iyo xulka Bulgaria sanadkii 2019. Waxa uu sidoo kale ahaa cod xooggan oo cambaareeya sida warbaahintu u soo bandhigto ciyaartoyda madow iyo kuwa cad si ka duwan. Romelu Lukaku. Lukaku ayaa dhowr jeer cunsuriyad kala kulmay horyaalka Talyaaniga, isagoo u ciyaaraya kooxda Inter.
Taageerayaasha kooxaha kale ayaa si joogto ah u beegsan jiray xilliyada uu tuurayo goolkulaadyada. 9. Paul Pogba Pogba ayaa si weyn uga hadlay dhibaatada cunsuriyadda ee ka jirta Ingiriiska iyo Yurub. Isaga iyo ciyaartoy badan oo Manchester United ah ayaa la kulmay hanjabaado iyo aflagaado dhanka internetka ah, taas oo keentay in uu u ololeeyo in kubadda cagtu aysan lahayn midab gaar ah. 10. Moussa Marega Sanadkii 2020, intii uu u ciyaarayay kooxda Porto ee dalka Portugal, Marega ayaa ka baxay garoonka kadib markii taageerayaasha kooxda ka soo horjeeda ay si xun u caayeen. Inkasta oo asxaabtiisu ay isku dayeen inay celiyaan, laakiin wuu ka diiday, isagoo tilmaamay in sharaftu ay ka muhiimsan tahay kubadda cagta. Waa tallaabooyin geesinimo leh inay ciyaartoydan u istaagaan xuquuqdooda. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.